ninkii odayga ahaa ee cabdi aadan qaysna waa ka soo fadhiistay waa raggii dee isagu weliba dardartii buu qabaayo haddii ay ka dhigo maaragtay weydiintii hiyahay laakiin anigu mahasada yara kooban waxaan midhaha uma jeeda waxaan ujeedaa sheekaday ku timi intaasuu naga yara dhegaysta waxay 1971 annagoo dhowra oo ragga caawa aan garanaya maalinta wada fadhiyay uu ka mid yahay maxamuud ismaaciil xudaydi waxaanu ku qayirayno fadhinay guriga allaha u naxariistee xalima khaliif magool dabeedna nin baa u yimi oo waraaq buu dhibay magool nin baa u yimi oo waraaq buu dhibay wuxuu yihi waraaqda baan kuu sidaayay ma hubo meeshuu ka keenay laakiin magool baa loo dhibay magool way furtay waxay aragtay inay carabi ku qoran tahay fadhigii way iga yeedho qolkeedii hurdada iyo igu yeedho waxay tiri warqada tan iyo akhri waraaqdii baan furay khad cas bay ku qoran tahay afcabeed bay ku qoran tahay waan bilaabay hadalkii sidii nin isaga warqada loo soo diray baan u akhriyay waayo wixii aan ka filayay waraaqda wax ka duwan oo cajiiba oo la yaab leh ayaa waraaqdii igaga soo baxay waa nin hadlaya ninku waa nin suudaaniya jacayl buu ka hadlayaa kharduum buu ka soo diray magool buu soo diray uu jecel yahay luqaday ku qoran tahay waa carabi jacayl haddii laga hadlayo afka carabiga iyo luqada carabiga wax jacaylka kaga xeer dheer ma jiraan balaaqadii iyo qofku markuu siriyay markay ka run tahayna waa kala luqad waxaan arkay waxaanan weliga kuna seexan kuna soo toosin wuxuu soo arartaba wuxuu haddii ilaahay ka dhigo soo wadaba aakhirkii wuxuu kusoo gabagabeeyey jacaylkiisii markuu ka sheekeeyey inuu gabadha jecel yahay oo sababta uu jecel yahay runtii aanan anigu qeexi karin waayo magool ilaahay ha u naxariistee iyo hablaheena fanaaniinta ah suudaan bay tegi jireen marka dabaaldegooda gobonimada aad baa loo jeclaa suudaan aad bay u jeceshahay fanka soomaaliyeed horta fanka soomaaliyeed oo dhan si gaara waxay usii jeclay magool dabeedna ma codkuu ku jecel yahay magool bas sida kale uu jecel yahay taas allahu yaclam laakiin aakhirkii wuxuu yidhi khadka waraaqda kugu soo qoray qalin cas maaha hadda waana khad cas qalin cas maahee wax kale maan samayne intaan sariij soo qaatay oo xididadeeda mid damooliyey ayaan dhiig ka soo qaaday qalinkii abusakaabaha la odhan jiraan ku shubay dabeedna waxaa warqadda aan ku soo qoray waa dhiiggayga aan xidid ka soo qaaday haddaatan anigu dhulka ila wareeyey amba waxbaan tiriyaaye laakiin jacaylku inuu ilaa heerkaa gaadhayo oo xididada la daldaloolinayo dee aniga iguma jiri sheekada oo bahalkaad ku ciyaaraysay ee mar baa halkan iyo halkan iyo halkan lahayd ba sidan uu halis u yahay su-aalahaas baan isweydiiyey magool warqadii baan u akhriyey laakiin waxay igu reebtay raad culus bay aniga ninkii hadalkiisii igu reeb bella foole la yidhahdaan degana markaasoo habeena dhanbay hor iman jirtay waa markii igu horreysaa dee sheeka noocaasa iyo jacayl noocaasa bahalku waa noocyo badan yahay oo haddii ilaahay ka dhigo maaragtay laakiin mid noocaasoo xididka la daloolinayo dhiiga laga soo qaadayo waa markii igu horreysay finally waxaan guddoontay inaan ninkaasi wuu iga yaabiyey isagana ka yaabiyo ninkii gabaygan baan maasadan kooban baan tiriyey laakiin iyadoo aan doonayn hadalkii hore ku nifaaqo ninkii wuxuu yimi muqdisho yimi dabeedna maxamuud ismaaciil xudeediyo aqalkii magool fadhiyaysale isagoo caawa joogaa fiicnaan lahayne sheekadii baa looga sheekeeyey de wixiisii tanna markaa waa suuqay taalla markaa maalin maalmaha ka mid ah koor galaba aloo la feera joogu ninkii oo uu wado la foora igu keeno wuxuu yidhi ninkan ma garanaysaa igu yidhi waxaan maya garan maayo adigu ma garanaysaa buu yidhi oo maya buu yidhi
marka tiisina de waa iga sheegay tanaan kaga jawaabayna markaa warkeena waa lahaya way sukaya sheegay marka maasadan ana barata sidaan u dhigay jacaylkii ninkii uu dhiigga shubay waxaan idhi bal kaga yaabay hadday ku suura gasho gabadh iyo wiilis jecel ninku dambaa jirtay oo qurbuhu qabtay oo waqtiyadii la tegi jiray intii iyo haddana ka dhigo Cumaan iyo Yaman iyo dhulka gabadhii markii uu dhaqaaqay ayay hawdka gashay dadba way ka go'day waxay weheshteen dugaaga iyo ugaadha in muddo ay geynta ku jirto jiris bay yeelatay oo haddii ka dhigo maalinka maanta way maradii waa ka iglaatay oo lagortii bahalaha yeelatay maalmaha ka mid ah ninkii waa yima wuxuu yidhi yablaayo meel waxay maanta dhaqaaqday bay dhaqaaqday halkay u dhaqaaqday jihaday u dhaqaaqday baritu soo jihadii baa loo sheego halkiibuu ka dhaqaaqo isaguna bilo ayuu dhulkii loogu tilmaamay kayntii dhulkii ku jiray oo raadinayay laakiin goor subaxa waxaa laytoo kale roogdaay si baadidoonkii wuxuu ku helay gabadhii iyadoo sii socoto xagga dambe kaga yimo iyadoo isagoo xaggeeda eegayo markaa laar qalalan ku joogsado qacbay tiro dib ay soo jeesato sakadha waxay isaga qaatay wixii ay la dariska ahayd bahalihii iyo gaadhi laakiin waa isagii wayarkii halkan waxaa ka dhacaya markaa sheekadii labada qof jacayl dhiig ma lagu qoray weli duux ma loo shubay qofna saarta dhabarkiiyo ma u dheegay feedhaha dhabanada cad laga jaray hadalkii ma lagu dhigay xinjiraan isdhana rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaha weli dhiil ma lagu shubay laba ma isdharsiiyeen sida dhayda xoolaha dhagdhag ma wadaagin waa dhiiggii halkani waa sahali hadduu jacaylku dhab yahay intuu qofkii walaaqba iska daayay inuu walaaq soo qaato saantiisaa dhabarka intuu soo dilaaciyey dabeeto qofkii uu jeclaaba ugu qoray wuxuu doonayay ama hadday ka dhab tahay intuu middi qaatay oo dhabankiisa jaray qofkii dhabanka cadkiisa dabeetana ma ku qoray dhambaadkii iyo wixii uu doonayay ama se halkaa hadday soo dhaafto laba qof intay soo hor fadhiisteen labadii jacaylku koobka weel ma soo qaateenoo ma yidhi bal irbadan sareejka ku wadnahaaga oo dhiig ka soo shubo ma u dhigay isagii horta halkaas markay marayso iyadii ma u dhigo inta kale buuxi qaradii buuxo labadii dhiiga dabeetana sidii caanaha geela loo wadaagi jiray loo wadaagi kow weli laba isdhaarsaday beriyo dhaca nasiib iyo dhul ku kala cilaalaa subax dharabku kowsaday dhedaduna cudoon tahay ilaa aan dhib mooye wax dhaqaaqayaa jirin jalab ba isku dhaadeen kulankii dhabta ahaa riyadii fikirtiyo dhalanteed ma moodin yani qofka kale waa arkaya qof waliba haddana mararka qaarkood xaqiiqooyinka hortaada yimaada lama hubaysto qof waliba wuxuu qaatay inuu maaragtay sidaa ayna dhabayaan dhowr jeer masalin af dhabaan dhabjabashada ma ka dhoofay hadalkii bal dhawaaqna kay tahay dihidii ma waaye bal ishelo oo iyana soo jeesatayo waxay isu jiraan ilaa halkan iyo ilaa raarta meesha aynu fadhino laakiin waxaa uu ka dhacday meesha hadalkii bay waayeen ay ku wada hadli lahaayeen bal dhawaaqna kay tahay waa la aqbalay baldhawaaqna kay tahay dhihidii ma waayeen afdhabaan dhabjabashada ama ka dhoofay hadalkii baldhawaaqna kay tahay dhihidii ma waayeen ma ka dhabaqday xaajadu ilma dhalatay xiisuhu sida dhibic mahigaan ma ka qubatay dhaayaha ma ku qoyay dharkoodii iyagoo dhan qarankii dheeldheeli mooye dhegna aanay kaga jirin kolba eray dhexroobka iyo dhumucday ka maqan tahay dhutinaya keligii dhirin dhiris ma ku heleen hadba erey googo-an oo aan dhammaysa khasab ku soo saareen intaas maaha suura gashay intaasi kadib 10 dhaqaalood casabkii iyo dhan xaragii dhirin dhiris ma ku heleen
toban maalmood kii qof meeshii taagnaayay ay sidaa u soo eegayeen 10 maalmood